siyaasadda dhalinyarada qaranka iyo tan maareynta musiibooyinka gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay shirka gudiyada joogtada ah ee golaha shacabka oo looga hadlay dib u eegista qabyo qoraalka xeer hoosaadka golaha shacabka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in wax laga bedelayo qorshaha lagu sugayo ammaanka caasimadda akhbaraadkeena dibaddana waxaa ka mid ah ciidamada Ciraaq ayaa qabsaday magaaladii ugu dambeysay oo ay gacanta ku hayeen kooxda Daesh daawadaalintaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan oo aan idin la socodsiiyo anigu ah Muxudiin Macallin Cabdulle golaha wasiirada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay siyaasadda dhalinyarada qaranka iyo tan maareynta musiibooyinka wariyaheenna Nasra Bashiir Cali oo ka qayb gashay kulankii maanta ee golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa warkan inoo diyaarisay siyaasadda dhalinyarada qaranka ayaa ah mid lagu xoojinayo awoodda dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana lagu muujinayo waajibka uu dalka ku leeyahay dhalinyarada iyadoo lagu cadeeyay xuquuqda ay ku leeyihiin dalka sida waxbarashada caafimaadka iyo helista fursado shaqo waana markii ugu horeysay ee uu dalkanu yeelanayo siyaasadda dhalinyarada qaranka oo qeexaysa ahmiyadda dhalinyaradu ay ugu fadhiyaan dalkan maadaama lagu tilmaamo inay bulshada ka yihiin 75% in ku dhow shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa lagu ansixiyay siyaasadda dhalinyarada qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya iyo siyaasadda maareynta musiibooyinka qaranka oo ay golaha hor keentay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka wasiirka dhalinyarada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiri oo la hadashay warbaahinta qaranka ayaan wax ka weydiiyay ahmiyadda siyaasaddan ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee bulshada ka ah in ka badan 70%. siyaasadani waxay kobcinaysaa aqoonta iyo garaadka dhalinyarada si ay u suurtageliso in ay dhalinyaradani helaan adeegyadii ay u baahnaayeen sidoo kale siyaasadani waxay gelinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed dareen wadaniyadeed oo si ay berri ay u noqdaan dhalinyaro dalka si xilkasnimo leh u guto waajibaadkooda siyaasaddan waxay ilaalinaysaa badbaadada dhalinyaradeenna waad ogtihiin duruufo adag oo tahriib iyo barakac iyo intaba qaxootinimo iyo xabsiyada ayagoo ku jira aad ogtihiin siyaasadani waxay dhalinyarada Soomaaliyeed u horseedaysaa sidii ku heli lahaayeen garsoor iyo cadaalad iyo wixii la mid ah haddii Allah awood la ogolaado hadda wixii ka dambeeya waxaan ay noqonaysaa siyaasad la dhaqan geliyo oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay u wada guntadaan kulligood inay ka wada qayb qaataan shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xubnaha golaha wasiirada loogu qaybiyay miisaaniyadda dawladda ee sanadka 2018 halka warbixin looga dhageystay hay'adaha amniga taa oo la xiriirta xaaladda ammaan ee waddanka kuwa golaha u soo gudbiyay in maalmihii ugu dambeeyay gacanta ku dhigeen hub la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Iidaan Yoonis oo la hadlay warbaahinta markii uu soo dhamaaday shirka golaha wasiirada ayaa xuseen golaha wasiirada ay soo dhaweeyeen heshiiskii ka soo baxay shirka ay Muqdisho ku yeesheen dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka xubnaha ka ah wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda inay warbixino ka siiyaan maaragtay maxaabiistii Soomaaliyeed ee ku xidhnaa dunida daafaheeda kala duwan oo ay ugu horeeyaan maxaabiistii ku xidhnayd Hindiya waxa kaloo laga hadlay maxaabiista ku xidhan Dubai iyo maxaabiista ku xidhan Uganda iyo maxaabiista ku xidhan Suudaan taasoo aad loo falanqeeyay la isku afkartay maaragtay sidii wax looga qaban lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee meelaha maaragtay wadamada kala jaadka ku xidhan sidii waddankooda hooyo loogu soo celin lahaa uu weydiiyay wasiirka maaliyadda lacagtii maaragtay 1 milyan ahayd ee dawladdu ay ku deeqday in la bixiyo maanta kama dambays waxa kale oo aad looga hadlay dhaqan aan magaaladan hore uga jirin oo hadda ku soo badanaya maaragtay maalmaha maaragtay ku soo badanaya uu ka mid yahay maaragtay in dad ay sameeyaan maaragtay warbixino maaragtay
been abuur ah oo aanay waxba ka jirin oo shacabka Soomaaliyeed lagu barakicinayo ama been loogu Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta shir gudoomiyay shirka gudiyada joogtada ah ee golaha shacabka oo looga hadlay dib u eegista qabyo qoraalka xeer hoosaadka golaha shacabka iyadoo dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabku uu qaabilay safiirada midowga Yurub iyo Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya wariyahana arrimaha golaha shacabka Ibraahim Guudle Isxaaq ayaa si amaqaaday warbixintan kulanka 14aad ee gudiyada golaha shacabka oo ay si wada jir ah u shir gudoominayeen gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheekh Ibraahim Mudey waxaa looga hadlay dib u eegista qabyo qoraalka xeer hoosaadka golaha shacabka oo ay xubnaha guddiga ka doodeen Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ah xogayaha guud ee golaha shacabka ayaa sheegay gabagabada kulanka in la isku afgartay in qabyo qoraalka xeer hoosaadka golaha shacabka guddiga ay soo akhristaan isla markaana dib la isugu soo laabto maalinta Axadda si tala soo jeedin loo sameeyo looga hadlayay arrinta maanta shirka hal ajando lahaa halka ajandana wuxuu ahaa dib u eegista qabyo qoraalka xeer hoosaadka golaha shacabka waxa weeye xeer hoosaadka golaha shacabku isku maamulo oo hawshiisa ku qabsada weey marka mar walba oo saddex kalfadhi walba ama labadii kalfadhiba mar baa la update gareeyaa oo la isboonaysiiyaa macnuu wixii kugu soo baxa muddadii la shaqaynayay ee soo baxa oo aanan ku jirin xeer hoosaadka ayaa marka loo fariistaa lagu daraa si aanay mar labaad dib u noqon oo mar walba warqad nool oo kolba marxaladii lala kulmo lagu darayo taas si fiican buu dhamaatay Cabdiweli oo laga dooday waa la falanqeeyay waxa la isla gartay in hadana aad loo akhristo ka bacdi maalinka Axadda dib loogu soo laabto oo qof walba soo aad soo akhriya hadana mar labaad la sii la faguro oo marka jihayn iyo tala jeedin laga sameeyo dhinaca kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin habka loo dhameystirayo ama loo marayo dib u eegista dastuurka dalka iyo kaalinta midowga Yurub waxaana gudoomiyaha golaha shacabka uu sheegay in dib u eegista dastuurka dalka lagu saleynayo baahida iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxayna safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ay ballan qaaday in midowga Yurub uu ku taageerayo Soomaaliya khubaro iyo sidoo kale dhinaca maaliyadda si loo dardargeliyo howlaha la xiriira dib u eegista dastuurka dalka in la dhameystiro sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa la kulmay safiirka dawladda Ingiriiska ee Soomaaliya oo uu kala hadlay sidii dawladda Britain ay u sii xoojin lahayd taageerada ay siiso Soomaaliya sida warbaahinta qaranka uu sheegay xogayaha guud ee golaha shacabka safiirka EU-da u fadhiya Soomaaliya waxaana laga wada hadlay oo ugu muhiimsanaa ajandaha laga wada hadlay dib u eegista dastuurka hadda socota gudoomiyuhu wuxuu ku adkaystay inuu noqdo ma aragtay habka loo wadayo dastuurka dib u eegistiisu mid ay Soomaalidu leedahay oo haddana Soomaalidu hogaaminayso oo aanay noqon mid ajnabi gacan ku leeyahay safiiradu waxay ballan qaaday iyadoo aaminsan kuna raacsan gudoomiyaha inuu noqdo waxa Soomaali wado in iyaga wixii kaalmo ee la weydiisto hadday tahay khubaro iyo hadday xoolo kala noqoto looga baxdo inay diyaar u yihiin waxa kale oo maanta la kulmay safiirka Ingiriiska gudoomiyuhu waxaana laga wada hadlay arrimo lafteeda dastuurka waa ka barbuuxa waxa kale oo laga wada hadlay xiriirka u dhaxeeya labada dal iyo ma aragtay golayaasha sharci dejinta guud ahaan looga wada hadlay Ibraahim Guudle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in wax badan laga bedelayo qorshaha lagu sugayo ammaanka caasimadda wariyahana Cali Axmed Sheekh ayaa si faahfaahinaya warbixintan
adeer maanta waxaan meeshaan ku kulansanaynay ciidanka booliiska arrimaha aan ka hadlaynay waxay ahaayeen nabadgelyo sidii loo xooji lahay waxay ahaayeen shacbiga Soomaaliyeed sidii loo kasba lahay ay noola shaqayn lahaayeen shacbiga Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada ay gacanna siiyaan annagana waxaan diyaar u nahay inaan dad ayagu nugul ahaano inaan naxariis badan nagala kulmaan inaan talooda ku shaqeyno inaan talooda u taagan qaadanno si dalkan uu noqdo dal nabad ah oo aan uga baxno dhibaatada iyo amni darrada ma keeni karna kaligeen haddii shacbigu nala shaqeynin shacbigana haddii annaga kalsooni naga helin ma shaqeyn karaan marka ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmaa oo ku adkaynaa inay shacbiga Soomaaliyeed si naxariis leh ula dhaqmaan imir leh deganaansho leh dulqaad leh loo naxariisto gacan siin fiican la siiyo waajibaadka booliiska inta oo faraa ay tahay in nafta iyo maalka muwaadinka la martay la badbaadiyane ciidanka booliiska inay gutaan waxaan dhigi doonaa sanaadiiq masaajidka isbahaysiga waxaan dhigi doonaa goobo kale sanaadiiqdaas waxay ahaanayaan 2 sanduuq midna waxaa lagu ridi doonaa wixii fikir iyo talo ah oo horumarin amniga dalkan u ah qofka hayo Soomaali ah waxaan ka codsaynaa sanaadiiqdaas axadda ugu dambeyn aan dhigi doono inay noogu soo ridaan sanduuqa labaadna waa sanduuq cabasho ah wixii dhaliil ah ama cabasho ah oo ay shacbiga Soomaaliyeed ka cabanayaan ay la kulmaan inay sanduuqaas ku soo ridaan ka codsanaynaa waxaana ballan qaadaa inaan tallaabo ka qaadno wax kasta oo cabasho ah oo meeshaas aan kala kulanno oo aan xalinno wixii talo ah oo horumar amniga dalkan u ahna waa qaadanaynaa waan hirgelinaynaa hadduu ilaahay idmo marka shacbiga Soomaaliyeedna gacan siin buuxdaan ka codsanaynaa annagana waxaan ballan qaadaa inaan u taagnaano ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waxaan ku guubaabinaa oo aan arrintaas maaragtay aan si adag u adkaynaa inay shacbiga Soomaaliyeed si dhimir leh ula dhaqmaan ay u nasteexayaan dadka ay nagu soo cararaan maaha in naga cararaan aan laga shaqaynin wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo gaaray magaalada Islamabad ee dalka Pakistan ayaa halkaasi heshiis afgarad ah oo la xiriira dhinaca waxbarashada kula saxiixday madaxda dalka Pakistan wariye Duraan Xasan oo ku sugan Islamabad ayaa warbixintan inoo soo diray wafdi uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa soo gaaray caasimadda dalka Pakistan ee Islamabad wafdigan ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda dalka Pakistan waxayna sidoo kale Pakistan uga qayb galayaan shirar caalami ah iyagoo ka wada hadlaya xiriirka u dhaxeeya Pakistan iyo Soomaaliya gaar ahaan iskaashiga dhanka waxbarashada wasiirka waxbarashada ayaa maanta la kulmay madaxda laanta tacliinta sare ee dawladda Pakistan waxayna ka wada hadleen iskaashiga xagga waxbarashada laanta tacliinta sare ee Pakistan ayaa waxa ay tahay mid muhiim u ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta Pakistan iyo sidoo kale guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaya inay wax ka bartaan Pakistan laanta tacliinta sare ee dawladda Pakistan iyo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka waxbarashada ee dawladda federaalka ayaa ugu dambeyntii gaaray safgarad waxayna halkaa ku kala saxiixdeen heshiiskan ay gaareen labada dhinac ay goobjoog ka ahayd safiirka Soomaaliya u fadhida Pakistan Marwa Khadija Maxamed Al-Makhzumi ayaa waxa uu yahay mid labada dal badan u ah gabagabadii shirka ayaa waxaan la kulmay wasiirka waxaana ugu horeyn weydiiyay bal inuu nooga warramo socdaalka uu ku joogo dalka Pakistan iyo waxa uu ku saabsan yahay aad u mahadsan tahay socdaalkii wuxuu ku saabsan yahay waa booqasho 2 maalmood ah 2 maalmood iyo bar waxaan halkan u nimid inaan dawladda Pakistan khaasatan wasaaradda waxbarashada iyo komishinka oo tacliinta sare ee dalkan aan ka wada hadalno arrimo labada dalba ay muhiim u ah aan iska saacideyno kuwaasoo ah Pakistan waxay leeyihiin saad og tahayba commission oo higher educationka ah oo aad effective u ah wuxuu jiraa qiyaasii 15 sano waxa uu sameeyay howlaha uu sameeyay markaad fiirsana waa wax cajiib ah
waagii ay asaaseen halkan 15 sano ka hor Pakistan jaamacadaha dalkan waxay ahaayeen number yar dadka waxbarashada sare aaday waxay ahaayeen qiyaastii 270,000 maantana waa 1,800,000 oo kun oo arday 15 sano gudahood marka number 1 waxay ahayd bal horto maadaama aan rabno anaga inaan samayno commissionka higher educationka maadaama aan rabno in waxbarashada tacliinta sare aan wax ka qabano maadaama Pakistan ay muhiim noo tahay waxyaabo badan aan wadaagno dhaqan iyo diin iyo waxyaabo la mid ah maadaama ay ayaguna taariikhiyan waxbarashada dalka Soomaaliya dadkii soo dhisay waagii hore ay ahaayeen marka waxaan rabnay bal in aan waxna ka barano horumarkan hadda oo ugu dambeeyay oo xoogan si u gaareen inaan fiirino iyo inaan bal haddii aan heshiis wada geli karno oo aan iska kaashano labada wasaaradood khaasatan tacliinta sare kaasoo ayagana ay naga caawinayaan xagga farsamada sidii waxaan dhisa lahaynay maadaama aqoon fog ay u leeyihiin taas ma ahan kulankan oo keliya sidoo kale wasiirku waxa uu ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen wadamo badan oo muslimiin ah kuwaasoo ay ka mid ahaayeen wadamada Turkiga, Pakistan, Suudaan iyo wadamo kale kaasoo looga hadlayay midnimada u dhaxaysa wadamada muslimiinta. wasiirka iyo wafdigiisa ayaa maalmaha soo socda sii joogi doona dalkan Pakistan waxayna intay joogaan ay kulamo badan la qaadan doonaan madaxda dalkan Pakistan waxaana wasiirku ii sheegay in Pakistan ay kala hadli doonaan waxyaabo badan oo ay ka mid tahay dhanka waxbarashada. Durraan Xasan, Islaamabad. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay aaska taliyihii hoggaanka taraafikada General Cali Maxamuud Cali Shariif oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho. wariyaheena Cabduqaadir Cali Axmed ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya. Allah u naxariistay waxaa maanta Khamiis ah isbitaalka Madiina magaalada Muqdisho aas qaran loogu sameeyay General Cali Maxamuud Cali Shariif taliyihii ciidanka ilaalada wadooyinka taraafikada oo xalay geeriyooday. waxaana ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya saraakiil ugaasyo xubka ayaa u xanuunsanay kansarka isla markaana taariikh u lahaa ciidanka taraafikada waxaana soo qabtay xilal kala duwan intii uu ku guda jiray sihayaha taliyaha ciidanka booliiska General Mukhtaar Xuseen Afrax oo kamid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay aaska ayaa sheegay inuu ahaa marxuumka nin firfircoon waxaana u tacsiyay dhammaan qarankii iyo heladii uu ka geeriyooday sariigu Cali Maxamed Cali Allah u naxariisto jannada Allah ka waraabi Cali wuxuu ahaa nin aan saaxiibanahay si gaar ah waliba aniga isku guriga aan haynay wax badan soo wada shaqaynay waa tiir runtii ka baxay ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan leenahay Ilaahay jannadiisa ka waraabiyo intii uu ka dhintay iyo walaadiisa sabar iyo Allah ka siiyo annagana waxaan guda doonaa mas'uuliyadda naga saaran oo jinaasiisa waa ka soo qayb galnay oo walaadiisana ka warqabi doonaa insha Allah Ilaahay raasika mas'uuliyad ahaan Muuse Suudi Yalaxo iyo Cabduqaadir Carabow oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyagana ka tacsiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay General Cali Maxamuud Cali Shariif oo ahaa nin taariikh u leh ciidanka taraafikada dana qoyskii oo ugu horeeyaan walaalihii caruurtii xaasaskii ahalkii in alla inta ay mataqaanaa Cali oo shiinsanayso dhan iyo Soomaalidoo dhan waa uga tacsiyaha ilaahay huu naxariistaan leenahay naxariis Allah nolol waa ku weynee asaga janna firdawsa Allah siiyo Cali Maxamed Cali waa ka taxsiniinaa guud ahaan qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada xoogga ee ciidamada booliiska inta meel oo ka soo shaqeeyaan dhammaan qaranka ugu taxsiinayna generaalku wuxuu ahaa nin zaciim oo aad u soo shaqeeyay howlo kala duwan soo qabtay ee ugu dambeysay hogaankii taraafikada haleenay eheladii qaraabadii iyo qaranka Soomaaliyeed guud ahaan Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Injineer Yarisow oo kamid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay aaska qaran ayaa u tacsiyay waxaana Allah ugu bariyay inuu ka waraabiyo jannada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun General Cali Maxamuud Cali Allah u naxariisto waqtigiisa dhamaaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed baahda booliiska iyo qoyska waxaan uga tacsiyaynaynaa in Ilaahay samir iimaan naga wada siiyo
geeridu waa xaq waqtigiisa dhammaaday inaan u ducayno ummadda soomaaliyeedna aan u barino in muxuu loo soo duceeyo in ilaahay jannadii ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. xuseen cali maxamuud cali shariif oo ah wiil uu dhalay marxuumka ayaa tilmaamay inuu ka tegay ku dhawaad 30 carruur ah iyo 2 xaas sidoo kalena muddo uu xanuunsanayay isla markaana uu ahaa qof in muddo ku guda jiray shaqada ciidanka. taariikhdiisa halkan kuma soo koobi karo laakiin waxyaabo yaran ka tataabanaa odaga wuxuu ka tegey carruur fara badan ilaa gaarayo 25-30 meelahaas wuxuu ka tegey 2 xaas oo asigu uu qabo markaas odaga xanuunna la soo gudboonaaday tiira biyaa ku timaday marka janaalka wuxuu ahaa nin haliyey ah oo dadaal badan taariikhdiisa waa taariikh aad u dheer. cabduqaadir cali axmed warbaahinta qaranka magaalada muqdisho. kulan lagu duceynayay xubnay hore uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo ku geeriyooday weerarkii naasaha boodlaba ee magaalada muqdisho isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. wariyaheenna Cumar Xasan Cali oo kulankaasi ka qayb galay ayaa warbixintan inooga diyaariyay. kulankan oo loogu duceynaya Allah u naxariistay Cabdinaasir Gaarane Maxamed iyo Maxamed Xasan Aadan oo kamid ahaa baarlamaankii 9aad ee Soomaaliya kuna geeriyooday weerarkii argagixisadu ku soo qaadeen hoteelka Naasaha Blood 28 Oktoobar ayaa waxaa soo qaban qaabiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka iyadoo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya wasiiro ka tirsan dawladda federaalka ah siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray waxgarad culimaawidiin iyo ehelada labada marxuum. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyo siyaasiga Salaad Cali Jeelle oo iyagu la soo shaqeeyay marxuumiinta ayaa ku tilmaamay inay ahaayeen geesiyaal ay taariikhdu xusi doonto. runtii munaasabada noocan waxaan u sameynaynaa inaan xusno oo weyneyno maqaamkooda waaye la xasuusto inay qayb ka ahaayeen dhismaha nabadda iyo dowladnimada Soomaaliya waqti badan iyo nafur badan iyo soo geliyeen iyo juhdi badan intaba la xasuusto oo mudnaantaas aan ku xasuusanay mudan yihiin. waxaa la dhihi karaa tolka ay ka dhasheen dadka ku hiray runtii waxaa la dhihi karaa meeshoodii waa la tebahaa la dhihi karaa laakiin ilaahay wixii ay ka tageen kuwii booska buuxiya allaha ka dhigo annagana kulligeen allaha naga sabar siiyo iyagana jannadii fardowsa ilaahay si fudud qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulanka ka hadlay ayaa u tacsiiyay ehelada labada marxuum iyagoona alla uga baryay inuu jannada ka waraabiyo marxuumiinta geeriyooday. waan u duceynaynaa walaalaheen in ilaahay u dambi dhaafo jannooyinkiisa waaweyn oo ku galladaysto oo uu siiyo dambigooda ilaahay dhaafo yacni waa shuhado weeye dalkan awgiis ayagoo maaragtay xil hayn ayay shaqaynayeen. waxaan leeyahay familkii iyo qoysaskii iyo eheladii iyo asxaabtii ay ka tageen walaalahay aad baan labadaba saaxiib u ahay aad baan usoo wada halgelnay aad baan usoo wada shaqaynay waxay ahaayeen niman akhlaaq wacan waxay ahaayeen niman wadaniyiin Soomaaliyeed ah waxay ahaayeen ehludiin qabriga loo qaboojiyo. ducaale aadan maxamed iyo axmed xasan aadan oo labaduba walaal la ah labada marxuum ee kala ahaa Cabdinaasir Gaarane iyo Maxamed Xasan Aadan ayaa uga mahad celiyay siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed sida ay tacsida iyo murugada ula qaybsadeen. marka waxaan dhammaanteen sabri iimaan Allah naga siiyo Soomaaliya oo joogno hana la xajiyo wixii ay ka tageen oo dowladnimada maanta taas ayaa muhiim ah inaysan gacanteeda ka bixin dowladnimada oo iyagu meesha ay dhigeen laga sii waday aad iyo aad muhiim ah. annagu qoys ahaan si hoose waxaan ku bixinay oo nooga baxay dowladnimada runtii qiimo aada weyn. dadkii hogaankii indhaha noo ahaa wasiir qamar naga badan allah u naxariistay wasiir cabdinuur labadan marxuum iyo dad kaloo aada iyo aada macno u laho kulligood hal qoyso hoose ah ayaa dowladnimada u baxay dhiigooda ku baxay. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad oo gabagabadii kulanka tacsida ka hadlay ayaa codsaday in la cafiyo labada marxuum isla markaana loo duceeyo. aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa sida
oo ehelnimada ah oo walaaltinimada ah oo sokeeyaha ah oo qaraabanimada ah oo aad noogu timaadeen oo aad walaalaheen saaxiibadeen aad noola sagootiseen sidii ay ducaale iyo axmed dheheen waxa weeye walaalaheen aynu cafino ilaahay aynu u barino wixii oo yacni gafaf ahaaye jirayna ha la iska cafiyo. cumar xasan cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho. kulan looga hadlayay isku xirka bulshada iyo laamaha amniga isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir. waryaheena arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil ayaa warbixintan sii faahfaahinaya. kulankan uu soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir ee ka dhacay degmada Heliwaa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir maamulka degmada Heliwaa iyo qaybaha bulshada rayidka sidoo kale waxaa ka soo qayb galay saraakiil ka socotay hay'adaha amniga. ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee laamaha amniga la isugu xir lahaa si looga hortago falalka gurcan ee kooxda maleeshiyaadka al-shabaab ku dhibaateynaysa shacabka Soomaaliyeed aan waxba galabsan. kulankan ayaa ugu horeen waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqaab ayaa tilmaamtay in qof kasta oo Soomaaliyeed looga baahan yahay ka qayb qaadashada sugidda amniga. amnigu wuxuu u baahan yahay geesinimo waxaan u baahanahay inaan tuuto wada xiranno dhammaanteen inaan jiid istaagno maxaa waxana laga rabo waxana laga rabaa wacyigelin waxana laga rabaa annaga haddaanay haween garab istaag waxana laga rabaa inaan gurno dhaqaale waxana laga rabaa inaan ciidamada maalintii Heliwaa la qabanayay ee aan meeshaan imaanayna xaylo bariisa iyo maslax iyo warshada baastada iyo sabta weyna dabaqa ka soo horjeeda ee saas loo goyn waayay la soo bay la qabanayay. gudoomiyaha degmada Heliwaa ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Cumar Cabdulle oo siina ka hadlay kulankani ayaa ugu baaqay shacabka ku nool degmada Heliwaa in ay maamulka degmada iyo hay'adaha amniga kala shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa falalka gurcan oo ay kooxda al-shabaab ku dhibaateynayso shacabka Soomaaliyeed. haddii ay qofkaas aynu la shaqeyno oo aanu u tagno oo report noo soo gudbiyo waxaanu la aaminay sababtoo waxa waaye haddaanan aniga gudoomiye degmana kuma filin degmada Heliwaa kaliya waxaa laga rabaa marka haddii shacabkeedii iyo ay la shaqeyn laamaha amniga degmada Heliwaa nabad helimayso waliba haddii shacabka aysan la shaqeyn laamaha amniga degmadu nabad noqonayso. laamaha amnigu waxay wataan ciidamo waay meel ay degan yihiin waxa laga yaabaa inaysan ka warqan xaafadda wax ka dhacay laakiin hooyada xaafadda degan wiilka xaafadda degan gabadha xaafadda degan odayga xaafadda degan waa qofka saxda ah ee soo report gareyn kara xaaladda ay ku jirta xaafadaas. haddaan marka isgacmaha issaarno aan qof walba anaga naga mid ah oo uu ka fikiro waa dhimane kullu nafsin daa'iqatul mawt. sidoo kale kulanka marka uu soo dhamaaday ayaa waxaa noo suurta gashay inaan qaar ka mid ah bulshada ka qayb gashay kulankani aan dareenkooda wax ka weydiino. laakiin waxaa la rabaa wadaniyadu inaysan naga lumin inaan ogaano ciidaanu tii aan adduunyada ku lahayn iyo aakhirada inay tahay meel kale kuma lihin. dal kastoo tagto waxaa lagu keenayaa ciidan waa dalkii hooyo wadaniyada inaad ku dhimataan la rabaa. ejeshana sida gabadhu gudoomiyaha ururka haweenku u sheegay ejeshu saacaday leedahay saacadaada ma dhaafaysid rajo kama qabtid inaad dhaafto rajo kama qabtid. waxaan leeyahay annaga qaybteennan odayaasha oo deegaanka jooga ama ku nool waxaan ballan qaadaynaa in dhalinyarada iyo ciidanka amniga inaan wixii tala bixina oon ka roona siino ayaan ballan qaadaynaa sidaasaan ku garab joogaynaa. waxaa inta ku qoran waxaad qarsato way ku qarsadaan been maaha. wadankan waxaa la soo mar dhibaatooyin aad u weyn waa aragteen 14 ka dhac qarixii soobe ilaa hadda ma hurdo markay ugu soo dhacday markii qaar haween Soomaaliyeedna waxa la leeyahay dadkayni waaye waxa la leeyahay wiilashayni waxa la ardadayni waxa la aabiyaasheen waxa dhinta waa shacabkayni. haddii aan maanta ka dhigacdeegna guri isku cilna nagana biri walaalka u lagu tubaadna meel ay ku saaran tahay gunidkeeda waa inaan ka dhidhinaa. waa degmadii afraad oo lagu qabto kulankani ama barnaamijkani samawade oo ay wado wasaaradda faafinta iyo maamulka gobolka Banaadir kaasoo bulshada Soomaaliyeed loogu wacyigelinaya ka hortagga qataraha ay kooxda al-shabaab ku dhibaateynayso bulshada Soomaaliyeed. Nuur Saciid Tahliil raadiyo iyo TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho. ku dhawaad 200 oo qoys oo ay soo barakiciyeen maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyadoo halkaasina dib u dejin qaarkood loogu sameeyay. waryaheena magaalada Dhuusamareeb Maxamed Deeq Cabdi Maxamed ayaa warbixintan halkaas inooga soo diray.
dadkan oo gaaraya 450 qofood kana kooban 170 qoys una badan haween iyo caruur ayaa dhowaan soo gaaray magaalada Dhuusamareeb kuwaas oo ka soo barakacay kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab kadib markii ay dhaceen hantidoodii dadkii qaarna dileen meelaha dhibaatadu ku qabsatay ayaana waxaa ka mid ah deegaano hoostaga Ceelhuur Hobyo iyo Xarardheere dadkan ayaana intooda badan lug ku soo galay magaalada Dhuusamareeb waxa ayna soo gooyeen masaafo dhan 500 oo kiiloomitir dadkan ayaana waxa ay codsanayaan in laga gacan siiyo hoy cunto dawo iyo waxbarasho waxaana hadda si kumeel gaar ah loo dajiyay iskuulka hoose xaafadda Waabari kuwaas oo dhibaato xooggan halkaasi ku haysato Sheekh Cabdiraxmaan Cali Maxamuud Baraka Qabe oo ah horjoogaha dadkan dhibaataysan ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay ku soo gaareen magaalada Dhuusamareeb oo ay soo miiceen bideen kadib markii ay dhibaateeyeen cadawga al-shabaab waxay ka heleen gacan qabad ka shacab ahaan iyo ka maamul ahaanba iyo ka hay-ad ahaanba aan isleenahay noloshu waa 10% baahida ugu badan oo hadda ka hadlaya waxay tahay number A ama number 1 waa hoy la'aan number 2 macnaha guryo ay ku hoydaan guryahan ay ku jiraan iyagoo konton qofooda waa midaan ka hadlay baahida labaad waxay tahay xagga cuntada way baahida saddexaad xagga caafimaadka way baahida afaraad waxbarashada way intaas oo dhan waxay u baahan yihiin in hiil iyo hool laga garab istaago hanti uma taalo Dhuusamareeb wax u yaala haba yaraatee ma jiraan waa midaan baaqa ka diray gudaha iyo dabadaba Soomaaliyay waxa weeye muslimnimo iyo Soomaalnimo soo heliya anu sidaas aan leeyahay dhinaca kale haweenay ka mid ah dadkan ayaa waxa ay sheegtay in ay codsanayaan waxyaabo ugu badan yahay hoyga waxaan codsanaynaa hoy in loo fidiyo oo hoy nala siiyo oo hoy naloo dhiso waxaan codsanaynaa inaan nolol fiican helno oo caafimaad helno shabaab maalkeeni guryaheeni wuu gubay baraagaheeni wuu jajabiyay ari xoolaheeni wuu qaatay nimankii wuu dilay wuxuu dilay iyo wax ka cararay noqdeen shacabkan waxaan yar soo haray waxna way kala carareen waxaan yarina way ka soo cid galeen maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb maamulka gobolka Banaadir ee dawladda Soomaaliya ayaa xeebta Liide ee magaalada Muqdisho ka hirgeliyay doomo loogu talagalay inay soo badbaadiyaan dadka xeebta u soo dabaal taga oo ay markaas biyuhu qaadaan wariyahana Maxamed Xasan Cali ayaa warkan inoo diyaariyay maalmaha Khamiista iyo Jimcaha xeebta Liide ee magaalada Muqdisho waa maalmaha ugu mashquulka badan xeebta iyadoo ay isku yimaadaan dad u badan dhalinyaro si ay ugu damaashadaan xeebta Liido inta ku sugnaa xeebta Liide ee magaalada Muqdisho waxay indhahaygu ay qabanayeen dhalinyaro aad u fara badan kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana ku dabaalanaya si nabad ah xeebta Liido haddaba si loo badbaadiyo dadka ku dabaalanaya xeebta Liido ee aan sida wanaagsan u aqoon dabaasha ayaa maamulka gobolka Banaadir wuxuu xeebta Liido ka hirgeliyay laba doomood oo lagu talagalay badbaadinta dadka ay biyaha baddu ay qaadaan qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda u soo damaashaa taga ama dabaasha u soo aada xeebta Liido oo aan kula kulmay halkaasi ayaa maamulka gobolka Banaadir ugu mahad celiyay keenista doomanka badbaadinta ah magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamuud Maxamed Xasan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay barnaamijka maanta halkan laga wado oo ah in la sameeyay doomo loogu talagalay in ay badbaadiyaan ilmaha iyo dhalinyarada badda ku dabaalanayso awal waxaan haddii aan wax yar ka soo qaato waxaa jiri jirtay in usbuuc kasta 3-4 qofood ay badda ku dhimato oo ay biyuhu qaadaan maanta waxaa la keenay doomo badbaadiya dadka baddu qaadayso oo aan muxuu ahay dabaasha aqoonin ama muxuu ahay ku qaraqma badda waxa way barnaamijkaanu barnaamij aad iyo aad loogu baahnay waayo waxa ku badbaadayso dad badan oo halis ugu jiray in baddu qaado magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Afrax Xusulay waxaan soo dhaweynaynaa annaan ku dhiiri gelinaynaa dadka sameeyay doomanka lagu badbaadinayo dadka dabaalanaya oo dhalinyarada ah waxaan ka mid ahay deegaanka dadka degan marka waxay dadku walwal badan ka muujiyaan waalidiintu dhalinyarada gelaya badda marka saas daraaddeed walwalkii wuu yaraaday dadkiina waa soo dhoweeyeen barnaamijkan waxaan leenahay ciddii qabanqaabisay mahad waa ka gaarto
waxaa la yidhi waxaa ku dhiirigeliyaa la yidhi gobolka banaadir ayaa ku dhiirigeliyaa la yidhi mataqaanaa dhallinyarada samaysay waxaan leenahay marka cid kasta oo barnaamijkaani ka dambaysay waa ku mahadsan yihiin dhallinyarada samaysana waxaan leenahay mahad haydinka gaarto gobolka banaadirna waxaan leenahay maadaama ay ku guulaysteen intaas oy dhallinyaro hal abuurkaas sameeyey yihiin cabdiraxmaan sheekh nuur oo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey qaabka ay u shaqaynayaan doomankaasi barnaamijkan quruxda badan aad arkaysaan waxaa sameeyey gudoomiye taabit iyo guud ahaan maamulka gobolka banaadir waxaa loogu talagalay dhallinyarada iyo guud ahaan dadkan dabaasha aqoonin khamiistii jimcaha iyo maalmaha kale fasax leeyihiin usoo dabaashaa taga xeebta la yidho in lagu badbaadiyo ayaa loogu talagalay laba doomood waa intaad arkaysaan laba doomood baddan xeebtan saadka u dheer waxba kama gasho qorshuhu waa bilow dhamaystirkeeduna waa dhiman yahay ilaah idinkiis waan rajaynaynaa ilaa 5 iyo 6 inaan gaarsiino la dhiso taawaris oo xaaladda dadka lagala socdo ilaah idinkiis waa maxamed xasan cali SNTV magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa booqday isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo halkaas oo warbixino ay kaga dhageysteen maamulkii dhaqaatiirta ka howlgalay isbitaalkaasi wariyaha warbaahinta qaranka ee magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warkan inoo soo diray xildhibaanadani ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kormeereen ama booqasho ugu tageen isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku jiraan bukaanno qaba xanuuno kala duwan waxaana ugu horeyn ay la kulmeen agaasimaha guud ee isbitaalka kadibna waxa ay mid u booqdeen qaar badan oo kamid ah goobaha marka ay jiifaan dadka bukaanada ah ee qaba dhaawacyada iyo xanuunada kala duwan waxaana sidoo kale ay soo kormeereen qaybaha cusub ee isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo lagu soo kordhiyay haddaba markii kormeerkaasi uu soo gabagaboobay kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay Xuseen Sheekh Qaasim oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Kismaayo oo faahfaahin ka bixiyay xaaladda isbitaalka waxa maanta na soo booqday xildhibaano ka socda xildhibaanada federaalka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay booqashadooda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa isbitaalkii bay ku soo wareegeen qayb walbay soo mareen bukaanadii bay soo baridiyeen taasi waxay noo noqonaysaa dhiirigelin xildhibaanadii dowladda federaalka oo xamar intay ka yimideen isbitaalka Kismaayo yimid oo safarka dheer soo galay qaybihii oo dhan soo maray bukaanadii baridiyay dhiirigelin weyn bay noo tahay bukaanadiina farxad bay u tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada oo ugu horeeya Sidiiq Qorfaa iyo xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali ayaa saxaafadda la hadlay waxaana ay sheegeen waxaan aad ugu mahadcelinayaa agaasimaha Xuseen Qaasim anigu waxaan xoojinayaa kaliya hadalkii gudoomiyaha arrimaha bulshada ee golaha shacabka Soomaaliyeed xildhibaan Cali walaalkii xildhibaan Cabdifataaxna waa ila socdaa waxaan anagu gudaynaa waxay waajibaad dastuuriya inaan u kuurgalno aan ogaano xaaladda caafimaad ee Jubbaland qaasatan Kismaayo marka waxaan ugu mahadcelinayaa agaasimaha warbixinta waafiga oo nasiiyay caqabadaha haysta iyo horumarka uu hiigsanayo waxaan ku dhiirigelinaynaa hawshaas ay hayaan hawl dalkoodii iyo dadkoodii ay u hayaan yaa weeyaan inay sii wadaan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa hay-adaha gacanta ku haya isbitaalkan oo ay ugu horeyso ICRC iyo hay-adaha kale caalamiga iyo kuwa localka ama daakhiliga aba waxaan u mahadcelinaynaa wax alaaliyo qofkii gacan ka geystay iyo isbitaalkan sidoo kale xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa kormeeray jaamacadda Kismaayo iyo jaamacadaha kale ee ku yaala magaalada iyagoo u kurgalaya xaaladaha waxbarasho ee magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo wasiirka difaaca ee dalka Djibouti iyo saraakiisha ugu sareysa ciidamada dalkaasi ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo sagootinayay qaybtii shanaad ee ciidamada Hiilwalaal kuwaas oo loogu talagalay inay soo gaaraan gudaha Soomaaliya si halkaasi howlgal ay uga sameeyaan wariyaheena dalka Djibouti Mikael Cabdirashiid Barre ayaa warbixintan inoo soo diray xafladda lagu soo gutinayay qaybtii shanaad ee ciidamada Hiil oo lagu qabtay xerada Maryamaha oo ka tirsan gobolka Carta ayaa waxa ka qayb galay wasiirka difaaca ee dalkani Djibouti Mudane Cali Xasan Bahdoon
taliyaha sare ee ciidamada gaashaandhigga jenaraal sakariye sheekh ibraahim iyo weliba saraakiisha kala duwan ee ciidamada dalka. wasiirka difaaca markii goobtaasi uu gaaray waxa uu salaan ka qaatay qaybihii kala duwanaa ee ciidamada isagoo uu helinayo taliyaha sare ee gaashaandhigga dalka jenaraal sakariye sheekh ibraahim. ciidamadan oo dhawaan soo dhammaystay tababar ay muddaba ku soo jireen ayaa waxay ahayd kuwo ay dhammaanba u dhammaystiran yihiin qalabkii kala duwanaa ay ku howlgeli lahaayeen, waxaana ciidamadani goobtaasi kula hadlay jenaraal sakariye sheekh ibraahim oo isagoo ah taliyaha sare ee gaashaandhigga dalka. waxa uuna ciidamadaasi kula dardaarmay inay ka qayb qaataan howlaha ammaanka iyo dibudhiska dalka Soomaaliya. ciidamada ka kooban hiil walaal oo qaybtii shanaad, ciidamada cusub oo aan ugu talagalnay degmada Cadaado ama magaalada Cadaado oo si gaar ah ay u weydiisatay xukuumadda federaalka ee Soomaaliya loo ogolaaday inay halkaa tagaan. waxaad ka kooban tihiin ciidankii dalka oo dhan wixii diraysiisay baad ka kooban tihiin, hadday army tahay, hadday gendarme tahay, hadday JR tahay, hadday booliis tahay, haddii waxay kale oo dhan la socdaana way ka wada qayb galaan tirada intay doontaan noqotay. qaybtan shanaad ee ciidamada hiileed lagu wada inay tagaan waddanka Soomaaliya ayaa waxay tagi doonaan magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud, halkaasoo lagu wado inay ka qayb qaataan howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. ciidamada hiil ee waddanka Soomaaliya ee ka tagay waddankani Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa ay yihiin kuwo intooda badan ku sugnaa gobolka Hiiraan, iyaga oo gobolkaasi muddadii ay joogeen ku soo celiyay ammaankii iyo kala dambeyntii, iyaga oo sidoo kalena ka qayb qaatay wada hadalsiinta iyo weliba ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka gobolkaasi. gobolada shabeellada guunya raadis uma tegin, gaal hore colloodeenoo gudubna ka dhaxayso kaa goosan maahayn, garabkaygii baad ahayd. kuwa beledka mariya nimankaa la baagay baabuurta waaweyne biikeemka qoriga dadkii beledka mariyey inaa kala badbaadisaan baxsan oo gurmudkoogii baa. Mikael Cabdirashiid Bare, raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya.